الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان مدحدا قرنكا الدولة رقمتك قناعسtada iyo dadweynaha ka soo qayb galay xafladan ba aad iyo aad baan soo dhaweynaya shirkadoonka gudoomiyaha iyo ku-xigeenka golaha wakiilada xubnaha baarlamaanka ka jooga dhammaan wasiirada golaha wasiirada inta ka joogta marti sharafta nooga timid dalka aynu jaarka nahay dalka Jabuuti oo hoggaamanayo taliye ku-xigeenka ciidanka Jabuuti Generaal Daahir Cali Maxamed ووفد بلارن أو ترياشة عندما دعوتها وفد جنوبي يمد دولة إنه شار كان هاي ولا لا إثيوبيا وهو جامن يالليوتن جنرال برهان وبقلة يسرع كشلا صعطابا سفارتها يكونسلرسكا أجنبي الدولة ده أنا صاحب كان هاي ما تكسر قريب قال هل كان دمان تود ترياشة أمرتها يدك كأي صادرين إذا ماذا إنجليز كا يدورها كلام صحيح كنا هاي إفرسما كعوي إذا مدينة دمان هذه أدبان سودوينيا أنت حفلة ما أنت استدي لما تنقول هذا أساس كعيدك قرن كسوق يبش مركب كوباد وحنا بريان يا دمان عيدك قرن كه هي إذا ماذا قرن كوردان أعرف لي يدبلي سراكيل حجين سراكيل هوسة سراكيل سراء جنرالله يحسس كودا إلى هنا وحنا كرشيني سنة كسنة وقتيسة إلى نخر مر يا نابض يا برواقة كقعدنا نبيتهم قبل صوص عضا يا سنة ده بدنا دم بصوص عضا همريا عيدك كدب ما أنت وحي عيدك الله يقول لها تريها عيدك وزيرك kooxdii aad baa looga hadlay ciidanka iyo waajibaadkiisa qaranka Soomaaliland iyo gobolka oo dhamme ciidamada kala duwan ee Soomaaliland ee ku mashquulsan waajibaadkooda ee amniga dalka iyo gobolka iyo Keenaba waxaanu aad iyo aad ugu hambalyeynaa inay waajibaadkooda guteen Soomaalilandna nabad ku ilaaliyeen gudaheeda dalka aynu jaarka nahayna aynu wax badan ka gudbanahay oo cadawga horumarka ah caalamka oo dhan waajibaadka ciidanka qaranku waa laba iyo ciidamada qaranka oo dhan waa koow waa inay dalka ka ilaaliyaan qaranka Soomaaliland xuduudiisa wixii ku soo xadgudbaya ee gardarro iyo cadow laba وإن موادك Somaliland وجورجيسة إياه هنتديسة إياه شرفتيسة بأمان كهرو وأمان كساحده ملك صدرك Somaliland كتشوف لبدا واجب وإذا بدك كردورة قرقو كتين شرط دبا كحرا وحيفرون كرا واجباتك يجو أور راعية إن قاطان وفريان ماذا golayaasha la doortay ee dimuqraadiga loo doortay ee dadweynuhu amarkooda u dhiibay iyaga oo raacaya amarkooda oo fulinaya dastuurka iyo shuruucda dalka kana amar qaadanaya xukuumadda golayaasha sharci dejinta iyo inta la doortay shardigaasi ku fulayaan ma aha mid ayagu iska wataan taasina waa ta looga dhigay wasiirka gaashaandhigga dastuurka loogu qoray inuu noqdo qof aan military ahayn waa sababta adduunka oo dhamme madaxweynuhu u yahay taliyaha guud ee ciidamada qaranka marka waxa isku xidhan awoodooda ay ku ilaalinayaan dalka nabadiisa iyo difaaca qarankaba iyaga oo raacaya sharciyada dalka iyo golayaasha la doortay taana way fuliyeen oo si buuxda amarada u qaateen dhammaan ciidamada kala duwan waana ku mahadsan yihiin qarankuna weydiin ogi halkaa waxaa ka soo baxaya qodob kale haddii ciidankii qaranka loo dhiibay awooddii nabadgelyada gudaha iyo dibaddaba hadduu yahay tiir dhexaadka qaranka uu ku tiirsan yahay waxaa la yidhi ciidankii qaranku ka amar qaato oo ha raaco awoodda fulineed markuu fulinayo golaasha la soo doortay madaxtooyada
iyo golaha sharci dejinta maxay awoodda ku soo noqotay miyay ku soo noqotay dadkii wax dooranaya shacibka xisbiyada iyo golayaasha doorashada iyo sida loo soo xulaayo qofka la soo dooranayo ee dimuqraadiyaddu ina siisay ee qof waliba fartiisu madaxweyne suldaan professor iyo ka geela raaca iyo ka badda ka kallumaysta iyo ka beerta qodanaya aynu u simannahay waajibka fuulay shacbigii wax dooranayay iyo xisbiyadii doorashada abaabulayay ee ku waajiba waxa weeye in ay keenaan golayaasha dalka looga taliyo ee qaran ahaan loo soo doorto iyo kuwa la doorto ee degma ahaan loo doorto labadaba hadday doorasho gaadhay shacibka iyo xisbiyada maamulaya ayay saaran tahay inay soo doortaan oy fagaarayaasha sare qaranka looga taliya keenaan dad xilkaa qaadi kara aqoonteedana oo maamuli kara hadday taasi dhici weydo oo shicibku si qaldan dimuqraadiyadda uga faa'iidaysto oo ay soo saaraan dad aan xilkaa aqoon ama aan gudan karin walaalayaal waxaan way naga qaldamaya waxay naga xumaanaya micnihii dimuqraadiyadda iyo dawladdii wanaagsanayd aynu doonaynay iyo dawladdii ciidamada xukumi lahayd iyo xeerarkoodii dadka loo soo xulay la dooranayaa hadday noqon waayeen dad aqoontaa leh wax weyn baa inaga qaldamaya marka taasi waxay saaran tahay mas-uuliyadda la yidhi ha la wada tashado oo 5 sanaba dadku cidda ha doortay ha xusuusnaado codbixiye kasta iyo muwaadin kasta oo Soomaaliland inuu mas-uuliyadda asaga saaran tahay oo codkiisu saameynayo xukunka jananada iyo ka wasiirada iyo ka guddoomiyaasha golaha baarlamaanka iyo wakiilada iyo madaxweynaha iyo kuwa degmooyinka oo soo doorata laba haddaynu intaa saxno oo dimuqraadiyaddii muwaadinkii saxo xisbiyadii saxaan way noo soo baxaan golayaashii warsan shardi kale dastuur ku xidhay dowladnimadeena waxaynu nahay dalka qura ee curiye fikradda ah inay qarannimadu ka koobnaato qarannimada dowladnimada dimuqraadiga iyo miidiyaha xorta ah iyo doodaha furan ee maanta adduunku darmooday inaynu taa ka qayb galno innaga oo shardi haddana kaga dhignay in dhaqankeennii gobonnimada lahaayee soomaaliyeed iyo shareecadda islaamku ay dabar u yihiin inaan dimuqraadiyadda iyo taa aynu waddaa aanay naga saarin hantideenna asalka ee islaamka iyo dhaqankeenna oona naga fara saarin labadaa shardi baa isku xidhan markay dimuqraadiyaddii soo baxdo buuqeeda iyo qayladeeda iyo sawaxankeeda oo dhammaanteed amishii shaqaynaya mucaaridkeeda iyo muxaafidkeeda iyo murankeedu waa mishii shaqaynaya mishii ka shaqaynaya gaas buu u baahan yahay oxygen buu u baahan yahay dab buu u baahan yahay waa inuu kululaadaa markaasuu energy soo saara dowladnimaduna waa caynka markaan waxaa soo saaro waxay haddana u baahan yahay intii la doortay ee qaran iyo deegaanba ahayd inay isfahamaan oy wada shaqeeyaan madaxa dhaqameedkii madaxii diinta madaxii baac mushtarka madaxdii aqoon-yahanka intaasoo tiiroo madowday oo wax wada qabsanaysa oo marka horena dooda deetana go'aankan wanaagsan wada raacdo wada furisa ayuun baynu ictiraafna ku heli karnaa ixtiraamna ku heli karnaa carruurteennana ay uga tegi karnaa haddaynu intaas eegno waxaanu la mid noqonaynaa dowlado badan oo hadhay walaalayaal yaanu ku dayanaa adduunku burburka uu soo wada maray dowladaha badankooda adduunku way soo wada maray dagaalada 3 qolaan tusaale idiin siinaya haddaynu ku dayanno inaynu hore u marayno haddii kale haddaad egta kaa liita mar walba innagaa soomaalidii burburta ugu wanaagsan xamar balaayaa ka dhacaysa iyagana aanu ducayno oonu weliba tala ay ku nabadgalaan siino innaguna aynu meel fog higsanno yaa ina ku dayan karnaa higsaday ruwanda oo si walba aynu uga aqoon badnayn hadday dowladdii inaga dunto hadduu khilaaf inagu dhacay sideenoo soomaalida somaliland hadday ka xumaatay oo ku burburtay midowga ay xamar la gashay oo walaalaheeda ay safkara waayeen
Soomaaliland waxay burburtay oo Soomaaliland waxa jooga ragii ku duulaya diyaaradaha super sonic codkooda dheereeyay waxa jooga professorada jaamacadaha ugu waaweyn ee Mareykan iyo Ruush iyo kuwa adduunka ugu waaweyn iyo France ragii ka soo baxay wada masterada oo ciidan baa jooga inta in leeg oo professor oo wasaaradda tacliinta joogta oo ka soo baxay jaamacadaha ugu waaweyn ee Mareykanka Ingiriiska iyo kuwa lahanta oo dhan aqoonta dawladeed dadka ugu aqoon badnaa ee ilaa inta isticmaaliyay soo dhisaayay ee dawladdu ka soo qayb galay aqoonta ayaa wali noo inkastoo daasi naga si dhamaanayso Rwanda inta buu kaga horreeyay gudaheedana siday soo xasuuqtay waarkaysa waxaan 5 sano gaaray may kaga baxday maantana waxay la tartamaysaa caalamka dawladaha ugu waaweyn sida loo dhageysto ayaa madaxweynaha loo dhageystaa war meenu ka liidanaa inagu maxaa hoos noo eegay inuu tir cala Allah Japan waa dalka qura ee dagaalka labada adduunka bulshada laba lagu dhuftay ee maalin qura 300 oo ku dhinteen sod ilaa maantana raadiski ku dhacay magaalooyinka ilaa maantana dadka dhalanaya iyo curyaamintii cudurku ka muuqdo waxa lagu dhuftay dhowr iyo 40 7 sano ka bacdi Japan dhaqaalaha adduunka qaybteeda ka hogaaminaysa qofka Japanka wuxuu shaqaynayay halka 8 laga saacado 4 saacadood si dalkiisa lagu dhiso لأنه هالك ما ينال إيجينه قيلاد يا بوق يا مرة بينه بيرونا ما شقينا سألوا تاو قارنا وحكينا له كتشيدنا هدينا كبحين من الجاري منه عندنا كل احترام ميس تصال استحاد واتشر ملك ولا يسوتكي ولا قيبي أو وحي شن يلا 2 مليون باكل تدقال كلام يدوك وحلوتري يا دور يا تونين روش كهاي إلا استيدنا اتشر ملك هاي مقالة قوله اتشر ملك في يوم بيشرو ورد بابلوك هلا دي شريعة فرتنكي ولا قبصد لا ترجع لقى ممنوعي ولا بربري يعني وحلا جي مير أينا نوجاري شان سنة كبعد شريعة فرتنكي كوبي سكوا أمريكا هاي كونتمكي دولها نقالة دون كوبي كمدها وحلا هو لو سوق بدو مارشال بلان بلسيو أمريكا وسوق بيه صدق سنة أنت اللي نوع عاون أيانو قعدتوا السارة هاي أيا كبضن صدق جرو حيرس يشرمك ويقف كشرمك إلا ما أنت عذر كلمة دي لا شقاد شيء جبان كمان استرس الشقاد دي لا يك إن قالك قاد كيف فرد جيم ركان دي له أو بيكرك ولا قادة وحنوبة هنا وأنا ما أنت سكول حسين عرفتها سوانا جاية تاينو جانا قاب كين الدولة ده نحور كذا وديمقراطيات نقضي أو شعب كي يقول ياش الله صدر تلود يبقى أوده إن الدلك هل كان واحد عامك كيران مسكحوا البدلان يسوقوليسيان تصان واحد كل هذا كرب الصعدان ويكب حنقاتك إيا ماويرد إيا مرنك تاسنا واحد أنت مواطن قفك تصود ورنس وأي أرجو تاسونا سيني برا وحرم هذا غيان أنت شركة سوق يبقى شيء لما أنتود وحرم هذا غيان وفود النوبة تبدأ لك شاركة حان فرن دولة هنا شاركة ما أنت نتشوفه سوماليلاند مبدأ أي كل سنتي وده هذا يعرف كويس وحوي والنبض خلافك الله وحليه ولا حضر يأسد القادشة يأسد الصبر عدو قبل بريته هرمارنت عالم كأردن أقواتها يتجنوا شيء رضي على ما يرى إن السوماليلاند رضي على تو يدور عدة وجودين أنا عمر كانوا نقالها ير السوماليلاند بدي تكون حصلين إنه شبيتنا وما شقين وما دافع عنه إثيوبيا ما دافع عنه سوماليا ما دافع عنه أنه حد كين أي نبدينا أي نقاضنا نبدي أنه سوينا شارك وجود بيسه ضل ولا وعينك مركن نبض شارك هلان أي سو على الفرمان أي كان شاك بحال نبض دل يسدوي أي هرم مرك يا نقالها يا وراقة يا قبس ودعة مركا أديك وايل جاهلا قف نبض فكر هرم مرة درس كاجيت استقاري سود وسنايا وحلو وذاقيا وحيجوا هيان يا وحنو هنا سوق يسون وحكروا ذي شيء ما أنت شار كانوا أمانتي جيبوتي إثيوبيا كينيا إنه حرير كينو مرة أيوه حريك وجوانا سنة أنت صدق يصير سوى شقيني لما أنتود وحنو هالشيء سونا هاي نبض جريو إسكاشي هارو مر ولا تنمو استحقال إنه قاسي مر واسع احترامنا لما أنت وإلهي ما هدي إنه شار كين هالك هلا قانو شار كين كله مقدشة كترية وإنه أنت بيسك حقله وإنه حوار هانشري ودواتنا صارح مرتي
شعب كوده يضاد كوده اللي بطاهسته ودوا عيننا إلى هاي النبض يهرب رسيو وولد ما تشعلي الحمان توده شاب كوده نوينا سامينيا ولا الكوده كل شارع وحنا وحنا نبض عنا وهاي برسقاتيه إلى هاي وحنا كذا نبض عنا قضانا إنه قلنا نبض عنا إسقاتينه خلاف الرحلة لنا وحوي حقيقة أو أنا رميسنين لبضل أو ستة بين واحد وحنا نكون مدرون نسقى أفكار ونكدوني دبعتها إن قاعدين ما أنت إن قاول إن جالس كأفريقيا وحوي لبدي دول قار كذا هاي صور استوها صعود أنا أقول إن الإسبان يقول قرادي ترياني بهاي استنشرة أهرم مران وأول الله ضيو كويشرة هذا صوكران لنا لكن ترس كذا كتريالك ولي waxa ka dhicina war 30 sano aynu mideysnayno waynu isceednay oo waynu isla dunnay 30 sano aynu kala maqlayno annagu wax badan ma yeelan gaareen nabad iyo horumar iyo dawlad isbaan ku jiraa idina dhibaataadan haysata waxa la yaab loo dabka ila soo gal uu ku dida walaalka anu horaan u socdo waa mashkada duu farinta waxaan u direynaa jaarkeena oo xaqiiqada og way noogu dhow ee dariska aan wax wadaagan waxaan u direynaa ururka Afrika Somaliland shacabkeeda wuxuu mudan yahay tixgelin haddaan wax loo tarayn in la siiyo inuu soo isagu doortay lagula shaqeeyo oo aynu qaranno madax banaan doortay dee qaranku wuxuu ku dhisay loo gar qaado xadkii ma jabin sharciga Afrika u dhigana xuduudii isticmaalka la joogo ma jabinayno axad qarameedkeeda ma jabinayno cidna dagaal kuma wado walaaladayda ayaa qaldan la aynu wada gubanaa soo hara ururka Afrika ee aad sabab xarintu tahay waxa looga baahay inuu xaqiiqada eego oo waftigii uu soo diray 2005 ee yiri arinta Soomaaliland way ka duwan tahay waxyaalaha ka socda dalka Afrika dib loo eego ina tiyaalkii laga qaado oo la soo amba qaadan dariska iyo Afrika ba codsanayna aad iyo aad waa mahadsantihiin dhamaantiin mar labaad wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh